warshada Som Plastic ayaa tartan furan oo su'aalaha lagu weydiinayo qaar kamida bulshada Muqdisho ugu qabatay guuleystayaasha ayayna hadiyado kala duwan lagu doonsiiyay. Wariyayna Ibtisaam Suldaan Maxamed ayaa warbixintan inoo haysa. barnaamijkan ayaa qabanayso shirkadda Som Plastic iyadoo tartan su'aalaha ay ku weydiinayso qaar kamid ah bulshada ku nool magaalada Muqdisho. dhanka kale barnaamijka ayaa waxa daadihinayay jilaaga caanka ee Cali Jaylaani JK. sidoo kale waxa ka soo qayb galay barnaamijka dad aad u tiro badan isla markaana lagu guddoonsiinayo alaabo kala duwan oo kala ah beeshin, garaafo iyo gambar. waxa ayna ku mutaysteen su'aalaha la weydiinayo iyagoo uga jawaabayo si farxad ku dheehan tahay. halkan qabanaya barnaamij weyn oo ay qabanayaan ama markaas alaab ay ku bixinayso warshada alaabta maacunta sameeyay ee Som Plastic Industry oo kamid ah warshadaha waaweyn ee dalka ku yaala. alaabtan oo dhan waa alaab lagu sameeyay Soomaaliya waxaana isugu jiraan garaafooyin, beeshino iyo sidoo kale kuraas aad u qurux badan. barnaamijkan waxa ka qayb galay dadweyne kala duwan waxaana markaas qayb ka ah jilaaga JK iyo sidoo kale Aisha oo qayb weyn barnaamijka markaas ka qayb qaadan doonta. magacayga Faisal Maxamuud Allah waxaa leedahay shirkadda Som Plastic alaabtan ay qaybinayso aad u soo dhaweynayna waan ku faraxsanahay wadankeena maadaama laga helayo warshad soo saarayso caagaga iyo waxyaabaha balastiga maadaama ay nooga imaan jireen wadamo shisheeye haddana waxaan ku faraxsanahay in wadankeena dhexdiisa laga furo warshad. magacayga Istar Cabdulqaadir wadaag Som Plastic waxaa leedahay ma sha Allah soo dhaweynayna si fiican maadaama wadamada caag shirkad wanaagsan ay tahay soo dhaweynayna anaga. shirkadda Som Plastic ayaa waxay markasta u taagan tahay in bulshada ay guddoonsiiso alaabo lagu sameeyo dalka gudihiisa. barnaamijka ayaa waxa lagu qabtay beerta Banaadir ee magaalada Muqdisho. Ibtisaam Suldaan Maxamed, Ibtisaam Fani, Som News TV, magaalada Muqdisho.